injineer yariisow saaxiibka xubin golaha wasiirada ka tirsan 12 bilood ka hor ayuu ahaa. waa injineer, waa siyaasi, waa suxufi, waa adeega bulsho, waana ciyaalka xaafadda. intaas oo sifo oo gaar ah iyo kartida iyo aqoonta iyo hufnaanta ayaa madaxweyne farmaajo ku xushay uguna aaminay isaga iyo maamulka gobolkaba inay ka shaqeeyaan gobolka banaadir, ka shaqeeyaan caasimadda muqdisho oo ah hooyadii ummadda Soomaaliyeed, wajigii Soomaaliya, hooyigii midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, oo ah magaaladii ay ku soo hiranayeen dhammaan shacweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, astaanta u ahayd wadajirka iyo unugii iyo yagleelkii dal xor ah oo Soomaaliya in uu saldhigto 1960kii noqotana caasimadda ugu bilicda san Afrika, dunidana magac weyn ku leh. waxaan dhawaan ka qayb galay shir madaxeedkii Afrika. wasiirka arrimaha dibadda Benin ayaa ila sheekaystay. wuxuu yidhi 72kii markii dugsiga sare aanu ka qalin jabinay baa waxbarasho naloo keenay inaanu ka baranno Soomaaliya. muqdishoana la keenay ilaa afgooye, meelo kala duwan oo badan baanu marnay, caasimadaanu aad u marmarnay, nala dejiyey. waxaana soo dhoweeyey dowladdii Soomaaliya waqtigaa. wuxuu aad u ammaanay oo uu weli sii xasuustaa bilicdii ay lahayd muqdisho iyo sidii ay uga sheeganayd caasimadihii Afrika ee waaga. magaalo lagu soo hirto loo soo dalxiiso. haddii imaka aad daawataan, shalaan daawanayey 73kii dokumenti nin Talyaani xidhiirinayo oo magaalada Xamar quruxdii iyo bilicday lahayd, dhirtii iyo udugii iyo maxaan ku idhaahdaa muuqaalkii fiicnaa ee waaga aad sii arki karaysid oo uu soo bandhigay. maxaynu taa ku soo celin karnaa in waxqabadkaa muuqda ee jirta gobolka hormuudka iyo aynu ka wada shaqayno. far keligii foor ma dhaqdo. maamulka gobolka oo keligina meel ma gaarsiin karo waxqabadka ay u baahan nahay caasimad ahaan inay magaaladu soo ceshato. haddii qoys kasta uu aqalkiisa dhir ku beero inta u bannaan, nadiifiyo oo hagaajiyo, bilicda iyo qurxinta uu ka shaqeeyo, magaaladu waxay noqon doontaa magaalo qurux badan oo bilicdii ay lahayd iyo wanaaggii ay lahayd iyo doorkii caasimadnimo ee adduunka ku lahayd soo celisa. taas aynu kala shaqayno gobolka banaadir. waxa uu door muhiima ka ciyaaray arkaynayna amniga iyo xasilinta caasimadda, darisaynta, nabadgelyadii inay soo noqoto, barakacayaasha iyo adeegga ay u baahan yihiin inuu qayb weyn ka gaadhsiiyo oo uu ka geysto. waxa uu qayb firfircoon ka yahay tubta bulshada, arrimaha bulshada oo dhinaca bilicda, biyaha, waxbarashada, caafimaadka, u adeega dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo aynu imaka arkayna inay iyagu ka marakaceen, ay wax badan la qabteen, iyo siyaasadda dowladda ee barakacayaasha, siyaasadda dowladda ee dadka baahiyaha qaarka ah qaba, sharcigoodiina uu yahay kii labaad oo uu madaxweynuhu saxeexo. taasi waxay tusaysaa inay dowladdu u soo jeedo inay dalkana wax ka qabato, maamulada wax la qabato, caasimadda wax ka qabato, dadka baahiyaha gaarka ah qabana wax badan lala qabto. wax badan baynu labadaas sannadood dowladdu jirtay soo qabannay. weliba sanadkaana ay indhaheenna ku arkaynaa oo gobolka banaadir uu soo bandhigay. iminkana waxaynu maraynaa heerkii labada sannadood ee hadhay. caasimadduna wax badan qaban lahayd, gobolka banaadirna qaban lahaa, dowladduna wax badan ay kaalin ka geysan lahayd, wadajirkaa shacab iyo bulshana wax lagu wada qaban lahaa. waxay inagu soo aadan doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo nidaamka xisbiyada badan oo aan aaminsanahay gobolka banaadir inuu budhig weyn u noqon doono dhismaha maamulada 17 degmo iyo gobolka banaadir iyo sal u dhigidda meeqaamka magaalada Xamar ay ku yeelanayso nidaamka federaaliga ah. dib u habeyntii dastuurkaynu wadnaa, shuruucdii doorashooyinkaynu wadnaa, nidaamkii xisbiyada ayaa taabagalay, siina adkaanaya. maxay maqaamka muqdisho ay ku yeelanaysaa uu noqonayaa waxyaabaha ay tahay dowladda iyo shicibba iyo caasimadda inaynu wada xaqiijinno kana wada shaqayno. wadooyinkii wax badan baa laga qabtay. waxay nagu soo fool loo dhowaan la hirgelin doonaa waddada isku xidha magaalada Xamar iyo Jowhar, magaalada Xamar iyo Afgooye oo ah laba mashruuc oo waaweyn oo ballaadan. waxaa kaloo inuu si isxilqaana hirgelinay barnaamijka isxilqaan oo meelihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladdu lahayd ee caanka ahaa sida tiyaatarka, madxafka, istaadiyo Muqdisho, taalooyinkii dib loogu dhisaayo
inagu dib u yegleynayno gacmaheennana kaga shaqaynayno gobolka banaadirna hormuud weyn ka yahay sidii dib loogu dhisi lahaa ishaa macallin ah ishii bugtaay ku bikaacso ayaa la odhan jiray waxaynu maanta indheheenna ku wada arkaynay kana marakacaynay bulshada rayidkii nooga markhaati kacday shacbinaha soomaaliyeed indhahooda ku arkeen dowladda iyo shicibbana arkaynay 12 bilood waxqabadyo la taaban karo oo uu hirgeliyey gobolka banaadir markaa mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa malaha annaga waa aragnay shacbinaha soomaaliyeed waa arkay bulshada rayidkii waa aragtay culimaadudiinka soomaaliyeed ciidamada qaybahooda kala duwan waa arkeen waa markii aad u soo bandhigi lahayd niman saaxiibbadeenna oo wax badan aan ka warhaynin siyaasiyiinta xanaaqsan aad u soo jeedin lahayd inay iyaguna arkaan indhahooda ku arkaan indhahooda ku fahmaan oo la soo taagan mar walba waxba lama qaban lama dhaqaaqin qabyo waa halkeedii waan idin hambalyaynayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka banaadir hambalyo xafladda soo bandhigidda waxqabadkii sanadka ahaana waa inoo xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu